Assalaamu calaykum. Halkani waa Xogsiin Media. Waxaa ka dhacay dagaal sokeey oo ah dagaalkii ugu xumaa abad. Waxaa la xasuuqay in ka badan 1 milyan oo qof. Maantana waa wadan ka mid ah wadamada ugu kobaca badan adduunka. Waxaa ku taala magaalada ugu nadaafadda badan qaaradda Afrika. Jamhuuriyadda Rwanda waa dal dhaca geeska Afrika. Waa wadan xiran oo aan bad lahayn. Waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo DR Congo. Bad ahaan dhulka dalkan waa 26,338 kilomitir square. Qaab ahaan waa dhul u badan buuraley, waxaana lagu naanaysaa dhulkii kunka taagag. Waxa uu leeyahay buur lagu magacaabo Krisimbi, taasoo ah buurta 9aad ee ugu dheer qaaradda Afrika. Dalkan waxa uu leeyahay wabiyaal iyo harooyin badan. Waxaana harooyinka dalkan ugu weyn harada Kivu, taasoo dhacda xadka Rwanda iyo DR Congo. Sidoo kale wabiyada dalkan waxa ugu weyn wabi lagu magacaabo Nyabarongo. Tirada dadka dalkan waa in ka badan 13 milyan oo qof, waana dad u badan dhalinyaro oo inta badan ku nool miyiga. Celcelis ahaan da'dooda ayaa lagu sheegaa 19 sano. Rwanda waa dalka labaad ee ugu ciriiriga badan ama cufnaanta badan qaaradda Afrika, waxaana dalka koowaad kaga horeeya wadanka Mauritius. Inta badan dadka Rwanda waxay ku hadlaan luqadda lagu magacaabo Kenya-Rwanda. Sidoo kale waxaa jira dad ku hadla luqadaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Sawaaxiliga. Dadka dalkan waxaa loo qaybiyaa ilaa 3 qowmiyadood, kuwaas oo kala ah Hutu oo ah 85%, Tutsiga oo ah 14%, iyo Tuwa oo ah 1%. Tutsiga waxay dhulkan ka asaaseen boqortooyo. Sanadkii 1884 ayaa lagu go'aamiyay shirkii Berlin in Jarmalku uu gumaysto wadanka Rwanda iyo Burundi. Dagaalkii koowaad ee dunida sidoo kale waxaa qabsaday dhulkan gumaystihii Belgiumka, kaasoo dadka dalkan kala soocay. Waxa uuna bilaabay inuu qof kasta siiyo kaar ama aqoonsi sheegaya qowmiyadda uu ka tirsan yahay. Waxaana bilowday kacdoon ay Hutuga kaga soo horjeedaan boqortooyadii Tutsiga, taasoo sababtay in sanadkii 1959 meesha laga saaro boqortooyadii Tutsiga. Dalkan waxa uu xorriyadiisa helay sanadkii 1962, markaasoo Rwanda iyo Burundi ay kala noqdeen laba dal. Hutuga markii ay la wareegeen xukunka waxay bilaabeen beegsiga qowmiyaddii Tutsiga, waxayna dileen 10,000 oo qofood, taasoo keentay in Tutsiga u qaxaan wadamada dariska, gaar ahaan wadanka Uganda. Tutsiga waxay samaysteen jabhad lagu magacaabo Rwanda Patriotic Front (RPF), waxaana dadka hogaaminaya ka mid ah madaxweynaha haatan ee Paul Kagame. Jabhadan ayaa gudaha u soo gashay wadanka Rwanda sanadkii 1990, waxayna la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga dalka. Sanadkii 1993 dowladda Rwanda iyo jabhaddii Tutsiga ayaa waxa uu wadahadal ku dhex maray magaalada Arusha ee dalka Tanzania, waxaana lagu heshiiyey in la wadaago awoodda dowladda. Waxa uuna heshiiskii burburay kadib markii diyaarad uu saarnaa madaxweynihii dalkaas lagu soo riday caasimadda Kigali, waxaana bilowday kacdoon ay Hutuga kaga soo horjeedaan Tutsiga, taasoo sababtay in 100 maalmood gudahood lagu dilo ama lagu xasuuqo in ka badan 800,000 oo qof. Waxaana dalka la wareegay jabhaddii uu hogaaminayay Paul Kagame, waxaana dalka madaxweyne ka noqday afhayeenkii jabhadda oo lagu magacaabo Pastor Bizimungu. Paul Kagame ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka difaaca. Sidoo kale waxaa la sheegay inuu ahaa shakhsiga dhabta ee daaha gadaashiisa ka maamulayay dalka. Sanadkii 2000 Paul Kagame ayaa noqday madaxweynaha dalka oo uu yahay ilaa iyo haatan. Isla sanadkii 2000 Paul Kagame ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu magacaabo Vision 2020 oo ah barnaamij horumarineed kaasoo lagu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha, sidoo kale lagu yareeyo faqriga iyo dhibaatooyinka caafimaad, isla markaana lagu xoojiyo midnimada dadka dalkan. Ilaa iyo sanadkii 2000 dhaqaalaha dalkan waxa uu sameynayaa kor u kac aad u xoogan, waxaana dhaqaalaha dalka inta badan ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha. Sidoo kale dalkan ayaa dhaqaale badan ka sameeya dalxiiska. Caasimadda dalkan waa Kigali, waa xarunta dhaqanka, siyaasadda iyo dalxiiska. Waa magaalada ugu weyn dalka. Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada ugu nadaafadda badan qaaradda Afrika. Inta badan dadka ku nool Rwanda 74% waa dad haysta diinta Kirishtaanka. Muslimiinta ayaa lagu sheegaa inay yihiin 1 milyan oo qof. Lacagta dalkan waxaa lagu magacaabaa Rwandan franc. Rwanda waa dalka ugu badan caalamka markii la eego tirada dumarka ee baarlamaanka ku jira.
boqolkiiba 61 baarlamaanka waddanka Rwanda waxaa fadhiya dumar.